maalin kadib internetka waxaan kala kulmay gabar hooyada ii dooqday runtii dadku waxay yiraahdeen labin isku dabeecad ay yihiin markii aan wada kulan kadib waan ka helay hooyadeen waan maad celiyay magaceedan gabadhaas wuxuu ahaa janaani qof wanaagsanayeen soo wanaagsan arjun iya dhaqanka macaamiisha waa inaad sida u samaysanaa iya janaani telefonkan kugu soo celiyo كبح خدك balfiir sida uu dhaqmaayo adiga soo marihina gabar sidiisoo kale ma helaayo gabar sidiisoo kale weligiis ma helaayo maxaa ka wadaana hadda la bilaaban soo uma jeedina janani hee markaa qiyaas dooqada ma ahay aniga runta haddii aan kuu sheega maya aniga adiga intaan kula kulmin ka hor marabin wax guur ah in aan maro ma fahantanaada sababtoo aniga haddii aan guursado xurnimada ayaa laga qaadayaa kadib aniga adiga markii aan ku arko hooyaday xataa waa u sheeg waxaan dhahay hooyo ninkana aniga ma doonayo aabahay camal inuu noqdo micnaheega nin xirxiran gartay aad waa ku qanacsantahay sooma arjun adiga qof nadiif ah tahay sidoo kale niyadaada daacad waay aniga maxaa kugu diidaa qofka aan raadinayo hadda ayaan gacanta ku dhigay noloshana waa isla wadaagaynaa laakiin hal mid ah markii aan isguursano dagaal iyo waxyaabaas inuu dhaco aniga diyaar mooyi sidee sababtoo adiga ma bahadlaysa soo maaha walaal hal saxan noo dhiib haye ma dhidhimineen may isku wanaagsanay mahadsanid walaal haye ma socon ha janani hooyada sawirkayga markii aragtay maxay ka dhacdayn ii sheeg bal in aroos kadib ayaan kuu sheegaya iska tiraadiga aniga hadalkayga ma aaminto waraasile kala fiirinayaan ku dhahay aniga ninka maxaa ka falayaana bal fiir qaabkiis siduu yaalo kan dooqayga maahan ani ma ka helin xitaa aha kuma waqal maayo adiga iska daa marka fiir bal siduu u dhoola cadeenaayo waa markii ugu horeysaa sawir ku arkaa soo dhoola cadeenaayo hay waxaa lay qaadaa sawir qurux badan sawirkan xasuus ayuu noqonayaa waxaa laga yaabaa marka ugu dambaysu dhol caday inay noqoto janani waxa maqlay inaa u baahanta inay la hadasho arjun ninkaas magaciis waxaa la shifaa aniga iyo wiilkaas marka ugu horeysay saaxiibo ayaa ahayn wuxuu ii soo bandhigtay jaceylkayna muddo badan ayuu socday kadib waxaa dhacday anaga nolosheena dagaal inuu soo galo 2 bil ka hor aniga lama hadlo okay muhiimadeedu ma aniga wax laga soo tagay wax inaan ka ogaado laakiin waxaa jira ogow aniga ninkaas markii aan ka har kadib waxaa isdhaha waa hilmaamaysaa noloshaadana hore ayaa ugu soconaysaa laakiin waxaa dareemaya aniga noloshayda culays badan inuu saaran yahay oo weliba wax farxad aan heleynin waxaan ka cabsanaa guurkan aniga in aan ku degdegaayo sidaas ayaan u maleeyaa waa ka shalaynaya micnahayga soo dhaqso soo bax nakeen way aba ku imanaya wax yar janani go'aankan adag ma kula saxan yahay tan ka la soco ilaa maanta hooyada aabay arimaan inay ku faraxsanayeen farxadooda anigoon fiirnayna ah teedoo kaliya inaan fiiriyo balse adiga mar baad go'aan ku gaartay booskayga qof kale inaan ku badishto kulli aniga kuma sii kalifaayo waxaan ku khasbanahay inaan ku fasaxo adigana farxaddaada si kuugu dhammaystirmato anigana wix markaas aan la kulmo ayaan soo dhawaynayaa waa mahadsan tahay midaas waxaa la dhahaa gamophobia gabar walba xilliga arooskeeda wareer ayay dareentaa
arooska kadib maxaa dhacay ii sheeg salaamay arjun mahadsanid sababtuna micnahayga aniga shalay haddii aan kula hadli lahayn nafis ma dareemlayn sidoo kale waxaan waxyaabo inaan kuu sheego xalay isaga ayaa isoo wacay weliba waqtiga ugu habbooneed noloshii ayuu isoo wacay aadaan u faraxsanaa aniga farxaddeedan lama soo koobi karo si wanaagsan kumaana fahmin arjun igra la noqo waxay sheegtay wax walba inay dhammaadeen kadibna waa ay baxday balse waxaysan la socon dhibaatada markaas inay bilaabatay arooska markuu kansalma aniga xanuun maanan dareemin balse xanuunkaan dareemaya wuxuu ahaa dadka agaareyga jooga markay igu sheekaysanayeen 26 sano kadib waa markii ugu horeyso guuldaro aan dareemay ilmana ah si sahlan inaan ku hilmaami karo wax walba xilligaas aan la kulmay soo hadan arjun waxaa maqlay guurkaaga in la kansalay anaa gabar fiican kuu raadinayo oo weliba adigu ku fahmayso maxay dhaad igaamus igaraal noqo walaal aniga waxaan u malayn jiray arjun gabar asagoo kale inuusan helaynin qaafkaanoo kaleet inay wax u dhacayaan aniga weligay uma malaynaynin murugaa dareemaya waxaa rabaa arjun inaa raaligeliyo hooyo qoftaan u sheeg bannaanka inay aado wiilkayga wax yar aan kula hadla arjun bannaankaada ayaan ku dhahay ukaadi gabadhayda wax yar yaaqi adiga doqon maa tahayne martida saama loola hadlaa waryaa haa hooyo way fiicanta guurkaaga hadduu kansalmo maxaa yeelay qof xun ayaa tahay fiiri gabadha saa u gasha waryaa naga tag waxyaabahanoo kalena samaysa ma loo baahneen madax ma dab kartaa adi maxaa ka qaldani weynaatee isku xushaa waryaa haa hooy waxaa runa inaan xalin karin sababta korsiimadaada ayaa midaan ka mid ah Soomaa hal mar xataa imaadan dareensiinin guurka inuu wanaagsan yahay dadku way fududahay inay ku dhahan qoftaas 2 bil oo kaliya ayaad aqoon u lahayd 2 bil iyo 2 sano waxay hata midda saniga shaqo kuma lihi balse waxaa run ah qoftaas saacad inaan u noqdo iskiilo xilligan qof kaliya wax lagu dareemayo waa aniga ditoorayso